السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وحن بالله السؤال هذا برنامج كان ما انتهى كذا سوي أو جديد يسويه وانتهى دلني رضا يدورك اعتقاد كرام هرمك دلك. حنسلاها هي مناسبة لو قاعد لي أرمها أي نبت جلية كل يوم كران دلني رضا يخبر شو نبت جلية مركم حيو بهانت وخبر شو بهانتها ما هو بهانتها ما إلا قحي بهانتها نولل كلمة جرتهدين إن بتقولي جري سما صدرت أدمر كوحنا ميزان هاي نولل شيء هو مهم سنتها إن بتقولي أنا جو كهلا مجا يونسكو وحن آدي مارت أنا جو مهدينا وزارة الانيرت سبورتس بقى سيدا مارت أي منشان أو مارت هستوريكي أي جو قيب قاتين إني سوء بابولان آدي وما سنتين Soomaali guud ahaan dhalinyarada ku qaadan aragti fayl siyaasadda dib u heshiisiinta in aan sameeyno anagoo dhalinyaro ahaan awareness aan u qabanayno bulshada barnaamijyada la soo jeediyay intaan kan tahriir ka ahayn maxaa loo waayay research ku saabsan arrimahan nabadgelyada ama nabadda ka hadlayso dialogue in la soo bandhigo ama la soo sameeyo cilmi baaris annaga ayaa wasaaradda oo ka shaqeynay youth policy inta la sameeyo kahor waxaan sameeyay data collection waxaan laba stage ayaan sameeyay quantitative iyo qualitative waxaan sameeyay data collection waxaan tagnay state walbo data collection ayaan sameeyay dhalinyarada ayaa data collection laga soo sameeyay kadibna waxaan sameeyay workshop iyo dhalinyarada isugu imaanayaan fikradooda isugu tarsanayaan UNESCO waxaa dhahdeen wax badanaa waxay fankareysaa dhalinyarada ardayda so wax badan ani weligay wadan kama bixin elaboorka xitaa weligay ma tegin haddana ma arkin wax UNESCO ani aan qaadan daro laakiin dad u wada xitaa aduna ma arkin horta UNESCO sida UN agency kala kuma shaqeeyaan waayo ayaga Soomaali member state ay UNESCO iyo Soomaali waa member state kana toos UNESCO waxay la shaqeysaa wasaaradda oo wasaarad ay la shaqeeyaan sidii wasaaradda waxbarashada toos wasaaradda la shaqeynaa waxaa jirtay eedeymo wasaaradda iyo laamaha amniga loo haystay oo ku saabsan dadka isu soo dhiibay inaad askareysaan arrintii askareynta iyo wixii la idinku haystay xay ku dambeysay runtii saan hor u sheegnay dadka la soo dhiibay waxaa loo sameeyaa dhaqal celin fiican qofka asaas si xor ah isku soo dhiibay qof la soo qabtay ma tusaale waa yimid wuxuu yiri war aniga fikirkii horaan xogaa rabaa inaan ka tanaasulo marka waa soo dhiibay dawladda isku soo dhiibay marka xarunaa la geeyey qofkii muxuu ahaa caafimaadkiisa marka la baaray kadib waxaa loo bilaabay waxbarasho meelo jiiftaa la siiyey waxbarashaa loo bilaabay diintaa si fiican loo baray raashin fiican la siiyey dhar fiican la siiyey xataa waxaa xor u yahay inuu asbuuciiba mar cidiisa reerkiisa dib u tago soo booqdo soo laabto su-aasheeda waxay ku qutuntaa guddoomiyaasha ururada dhalinyarada khaasatan kuwa la shaqeeyo dowladda iyo hay-adaha caalamiga maxaa loo waayey waxqabad muuqdo oo la taaban karo maadaama intii aysan guddoomiye noqonin xog badan ay hayeen dhalinyarada si fiican ay uga warqabaan markii ay kuraasta fadhiistaan oo ay guddoomiyaasha noqdaan weliba nasiib ay yeeshaan inay dowladda la shaqeeyaan inay la shaqeeyaan hay-adaha caalamiga maxaa loo waayey wax la taaban karo oo ay qabtaan waxaan aaminsanahay waxaan anigu hadda aaminsanahay inay tahay in dhalinyaradu ay iyagu maskaxdooda iyo garaadkooda la kaashadaan dalkaana contribute garayaan qof kasto mas-uuliyaad gooniyaa saaran inagoo dowlad fiirinaynin title dowladeed qofka dowladda ku jira ama mas-uulka ku ah waa shaksi inagaa ka badan waxaan aaminsanahay maanta inaanan keligay waxba qaban karin haddii Soomaaliya youth cluster ay la shaqeynayeen sida cilmi baarisyo la soo sameeyay ama meelaha lagu soo qabto waxay ka baxsaneed sida la soo jeediyay Soomaaliya sida Nairobi Addis Ababa iyo meelo kale oo tiro badan uu sheegay
maxaa hoos loogu daadiji waayey oo degmooyinka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya arrinkaas looga soo looga soo qaban waayey si loo xaqiijiyo ama loo gaaro goolka ugu hoose runtii qorsheedu ma ahayn waa ku qaban karnay Soomaaliya waan ku qabanay laakiin kuwa dibadda waxay ahayd inaan iswadaasano wadamada dibadda fikirka ay ka haystaan arrintan oo aan maadaama wadamadan qof kasta uu istaraatiiji gooni leeyahay tayna iyo tooda bal inaan isku fiirino iyo haddii ay jiraan talooyin iyo tusaale ama wax hore u guuleysano kale inaan ka faa'iideysano runtii wax badan laga hadla maanta intii hadashada aad u hadleen waxaan aaminsanahay wax badan inay ku jiri doonaan oo hadal ah iyo su'aalo iyo Soomaaliya weli dambe iskagu jirto ya waxay tahay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan nabadda iyo xasilinta dalka horta qof walba inuu xil iska saaro asiga dhalinyaro ahaan inuu qof walba xil uu muujiyo oo xil iska saaro amniga waddanka boortiga labaad inay dhalinyaradu sameeyaan wacyigelin dhanka amniga inay dhalinyarada dadka baraan muhiimadda nabaddu leedahay inay dhalinyarada la shaqeeyaan hay-adaha amniga maanta sida ognahay waddankeena dowlad waa leenahay daciif ha ahaato ama awood ha lahaato intaba muhiim maaha laakiin waxaa muhiim ah in aad adiga doorkaaga ciyaartid ka dhalinyaro ahaan doorkaaga ciyaar maanta ha eedeen qof mas-uula ha eedeen qof taata leh laakiin adiga kaaga iska soo dhacdis kaalintee ayay waxbarashadu ka qaadan kartaa nabadda iyo xasiloonida kow waxaan dhahnay waxbarashadu waxay hagtaa ama dhistaa maanka iyo ruuxda qofeed ama bulsho labo waxaan dhahnay tacliintu waxay saldhig u tahay nabadda iyo horumarka waxbarashada madaniga ah ayaa sal u ah nabadda iyo wadan jaceylka qofka علينا أريدنا حكي نبذل أريد وحنا نقطع حتى الآن ما هذا الآية لكن بركي لما قال حكيش أو بس تفضل حق صنع قرحي إيو شباب إيو بوكحرات إيو لكن حكيش runtii markii la xaqiijiyo waa qof kasta oo ku dhegan wax uu kaliis aaminsan yahay rabana in la qaato waa inaan shaqadayna ku abuuraa idinku weliba khaasan dhalinyarada ay lutaa annaga dowlad ahaan laba shay baad nooga doonaysaan waxa weeye inaanu abuuro barnaamijyadii iyo regulationkii wixii lagu xadidayey ee lagu yani sharciyan lagu dhisi lahaa iyo barnaamijyadii hirgelin lahaa in shaqo abuur ay timaado oo markaa ay qaabkaa u timaado ayaana kale naga sugaya oo insha allahu tacaala aan doonaynaa inaan ka wada shaqeyno waxa kale yani muhiimadda ugu weyn ee jirtaa waxay tahay runtii yani doorka nabadda iyo horumarku qeyb weyn buu ka qaataa dhismaha dalka waxaan hadda jeer aala ku nidhaahnaa qolooyinkan markaan la hadlayno amniga iyo maxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhu yani no development without security and no security without development